waxaa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland ka furmay ciyaarihii sanad walba dhamaadkiisa la qaban jiray xilliga qaboobaha. ciyaarahan ayaa sidoo kale waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda Hirda. sidoo kale ciyaarahan ayaa waxaa ka soo qayb galay kooxo aad u tiro badan oo ka kala socda wadamada Yurub. kooxahan ayaa waxay iskugu jireen kooxo kubadda cagta iyo weliba kuwa basketball ah. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Fiqi iyo weliba mucjisada miiska kubadda Ambassador Magan Daahir iyo weliba fanaaniin madadaalinayay dadweynihii ka soo qayb galay koobkan. ku sugnaa ciyaartoy hore oo soo saftay qaranka Soomaaliya haddii tahay basketka iyo haddii tahay kubaddaba. ugu horeyntii waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Hirda Dr. Raisa Faadumo iyadoo isla markaana ka sheekaysay taariikhdii uu soo maray hay'addan Hirda oo ah hay'ad wadankiina wax ka qabata oo arrimaha bulshada wax ka qabata halkan meelahan dhalinyarada joogtana oo Yurubna wax u sameeyay ayadana oo hawlo kala qabata waxyaabaha wadanka qabano sida badan waxaa u badan hadaa fiirsid adiga 80% iska dhe waxaa kamid ah waxbarashada haweenka iyo reliefka iyo sportiga oo kale oo ayadan aan ka qabano wadanka. ciyaaraha ayaa waxa ay ku bilaabeen jawi aad u qurux badan iyadoo isla markaana koox walba ay ka gooneyd in ay koobkan hanato. isreebreeb kadib waxaa finaal u soo baxay xagga kubadda cagta kooxda FC Dambush iyo kooxda FC Den Haag. kooxda FC Dambush iyo kooxda FC Den Haag ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan iyadoo isla markaana weerar iyo weerar celin ee ciyaartu ku dhamaatay, balse guushu waxa ay raacday kooxda FC Den Haag oo 5-4 kaga badisay kooxda FC Dambush. dhinaca basketballka ayaa waxaa qaaday koox gabdha ah oo lagu magacaabo FC Stars. gudoomiyaha hay'adda Hirda Dr. Raisa Faadumo ayaa halka waxa ay shahaado sharaf koob ah ku gudoonsiisay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya xubinta qaramada midoobay. danjiraha Dr. Fiqi ayaa ugu dambeyntii waxa uu koobkii gudoonsiiyay kooxda kubadda cagta FC Den Haag. waxaa goobta iyagana koobkii lagu gudoonsiiyay koox gabdha ah oo basket ah oo iyagu ku guuleystay koobka basketka. waxaa iyagana bilado la gudoonsiiyay garsoorayaashii kubadda cagta iyo weliba ciyaaryahankii ugu fiicnaa, kii ugu goolasha badnaa iyo weliba tababarihii ugu fiicnaa. warkan waxay niisoo diyaariyay anigoo ah Sugulo Siciid. halka nagala socotaana waa website-ka caalamiga ah ee qarandoon.com.